بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، ودرس جيني لحاد كتابك صحيح المختصر الصحيح، أما مختصر صحيح البخاري المعروف بابن أبي جمرة. فعن عباد بن تميم عن عمه أديركي وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى وحوغا اشتكودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوغا عوضي الرجل من الذي ننكاسو يخيل إليه لموسينيو أنه يسقو يجد شيء دريمي في صلاة فقال وحوري لا ينفتل يا نبحن. لا دمرك ما حين نغطي والناهية لا ينفتل يبحن أو لا ينصرف أو لا ينتقل. صدح هذا الرواية بو يجران لا ينتقل يوريجن، لا ينصرف يلحن، لا ينفتل يكبح صلاة. سكون بعدين الله مقول سكون سيء سبع حقين ولو ضموا دي مجرى لا ينفتل مجرى الضمه ساسي حديث قوتمي نهيجا لا ينفتل يكبح صلاة، لا ينصرف حتى يسمع إلا أمغلو صوتا عد أمغلو نفتو أي سميسي أو يجد أما دريمو ريحا أرتدي حميد دريمو. عباد ابن تميم أديركي يلا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري صحابة أنصارته وحكوته لنبي عبد الله بن زيد مدوحة عبد الله بن زيد بن عبد ربه أيو عنكوي وأنك كوري وذا أذانك يا إسقوا حوية وأنصاري والنجاري بن النجار كانوا حوية وزيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ومن بني عويم بن ساعدة ساسي كل دوين مركا نبا وحو كعبني قف كستوي ما هننقارا قفا وحو كدريميا علوشيسا isagoo salaad ku jira in wax ka yimaadeen neef oo kale waayo wixii kale waa la dareemayo iyagu de waxay leeyihiin haday kaadin noqoto iyo haday saxaro noqoto iyagu hawlo kale leeyihiin laakiin neeftu iyadu qofku waxa laga yaabaa inuu wax dareemo iyadoo waxba jirin. bar riwaayadka qaar ba waxay sheegayaan shaydaanku inuu shaqaysto oo isagu sanqar yar ku sameeynaayo marmar buu afuufaya meesha saga afuufaya wuxuu inta halgan iyo dagaal kula jira salaadaada mar wuxuu qabanaya jirku yar qabanaya tad noo say wax ka yimaadeen hadii qofka waswaaskaas ku dhacana muxuu ku jirayaa ma bayna dahabin ila salati wa rujuu'in minhu oo galay oo ka baxay soo weysistay hadana uu galay isna waa qabtay hadana waa galay hadana marka dawashada muxuu ku oranayaa war salaadiba ku hirgeli meeyse iska bada baash si aanay taas u dhicin albaabkii shakiga la soo xiray waxba dareentay dareen ha ku shaqeynin waxaad ku shaqeynaysaa yaqiin labadan la sheegay cod aad maqashay iyo ur aad dareentay labada laftooda looma jeedo waxa loo jeedaa hubaaluun haddaad hubsato in wax ka yimaadeen ka bax salaada soo weysayso haddaanad hubin shaki ha ku shaqeynin. halka waxa laga qaataa qaacido weyn oo shareecada kamid ah oo dadka nasisay. qaacidada maxaa la yiraahdaa al-yaqiinu laa yazulu bi-shak. yaqiinta la hubaa shaki kuma suusho. waysa qabad hubtay tolo markii uu tasuuligi miyaad gashay halka tolo nafimiye kaatimi tolo miyaad qof taabatay tolo saxbo ka shaqeyn meesee yaqiintii waa lagu shaqeynaya. waxaad hubtay inaad bilaawaysa ahayd tolo markii uu timid weysatay wadiga halka yar marmarayay وبتجروا إذا ويستين كله هتكون شغالين سا يا ويسلا أنت هذه بتكون شغالين سايو ويسيسني سا صلاة بتكون شرتها واحد هبتين لبرك عدد كتي تصدحات بتكش كدي لوضع ساعة كسوقات سا تصدحاتنا وتكني سا وركز مدين دعي وقاعدة بل ويكسي فوقين علماء ديو واحد لا استصحاب هم بقاء ما كان على ما كان بكقاته hebel maxaad ku ogeed gurigan hebel baa leh hebelkii un baa leh ilaa aad ka ogaanayso
yaqiin kale waa tii laga iibsaday waa kii bixiyey waa laga dhaxlay war dambe oo yaqiina ayuunbaad yaqiintaadii uga gudbi kartaa tolo miyuu iibiyey tolo baryaha waad arki weydeen miyuu xaraan waxaa toloaas ma shaqaynayso hebel waxaa taqaanay xaaskaas inay tahay hebel xaaskii sidii bay u ahaanaysaa ilaa goorma yaqiin waa kii furay waa kii ka dhintay labadaa mid mooyaane wax kale oo lagu dhaqmayaa habeertay bil loo furay ya ma lagu meherin karaa saa waa maya alyaqiinu laa yasuulu bishaki qaacidaa weyn baa laga qaataa xadiiskan can abi qataada alxaaris ibnu ribciy alansaari faarisu rasuuli llahi sal ly slam waa saxaabi aad u weynaa oo faariskii nebiga ahaa rag badan oo gaalaa gaagaabiyey mashaahidda fardoolu ahaa mar walba fardoolu ahaa markaa saxaabi weyn weeye wuxuu ku geeriyooday kuufa xadfa anfihi bes buu isaga dhintay 54 hijriyada qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa baala axadukum midkiin hadduu kaajo falaa ya'khudanna yuu qabanin oo qabanin dakarahu xubinkiisa taranka biyamiinihi midigta yuu ku qaban walaa yastanjii yuu ku istijoonin xaala istinjaa'ihi markuu istijoonayana biyamiinihi hadduu dhagax isticmaalayo iyo hadduu biyo isticmaalayo laba gooraba midigta yuu ku istijoonin walaa yatanafasu saasaa idin qoran soo maha damada so walaa yatanafas dama idin qoran dama walaa yatanafasu marka waxa weeye waa nafyi tanaa ka xeel dheer nahyiga walaa yatanafasu kumaba neefsado fil inaa'i weelka yuu ku neefsan weye macnaheedu laakiin kumaba neefsado dee suurtagalba maaha maba ka dhacdo qof islaama wey marka xadiiskani wuxuu ka warramayaa 3 arrimood oo waaweyn arrinka koowaad waxa weeye qofku marka uu kaajayo gaar ahaan ragga xubinta taranka midigta waa laga ilaalinaya midigta maxaa looga ilaalinayaa waxaa looga ilaalinayaa waa meeshii wax lagu cunayay waa tii dadka lagu salaamayay waa tii laysku daahirinayay hadhowto jidhka markaad meedhayso ama weysaysanayso waa tii laysku nadiifinayay marka culimmadu waxay isku maandhaafeen xaaladda midigta la diiday ma xaalatul bawl baa mise waa fii kulli xaala waana waxaa khilaafku ka taagayay wax loo yaqaano xamlu lmutlaq cala almuqayad xadiis mutlaqa iyo mid muqayada soo arooray keenana waa maxay waa muqayad idaa baala axadukum midkiin hadduu kaajayo xilligaa weyn falaa ya'khudanna dakarahu biyamiini marka ta xooga badan waxa weeye xaaladii labada la isla doonanaya maaha mutlaqa muqayad lama doonanayo waayo markay kala duwan yihiin xukunkoodu sababtuna kala duwantay la isla lama doobtaba sababtu way kala duwan tahayoo midna nijaasa meeshii taalla ya midna nijaasa ma taallo xukunkuna uu kala duwan yahayoo xaaladda kaadidu ay socoto ee ay jirto waa nahyi in la taabto midig lagu taabto xaaladaha kale haddii qofku ama xoqanayo ama allahumma salli ala maxamed uu daaweynayo ama wax la mid ah waa uu ku taaban karaa waayo taqyiidku wuxuu ku qaydnaa idaa baala axadukum maxaa laga cararayay inay kaadidii soo gaadho markaa taasaa xoog badan ibnu daqiiq alciid isagu intuu khilaafka soo arooriyey ayuu ka hadhay laakiin culimo badan ayaa sidaa taxqiijisay oo sidaa qurux badan u dhigtay walaa yastanjii yuu ku istijoonin biyamiinihi midigta yuu ku istijoonin oo markaa qofku biyo isticmaalayo garanay oo midigtuu qaadanay biyihii ku shubaya bidixdiina uu ku istijoonaya xaaladda laakiin ishkaaliyadda ugu dara waxay noqonaysaa markuu dhagax ku istijoonayo ama softi wax qallalan muxuu baahanaya labadii midkood qaabo badan bay culimmadu sheegaan oo qaar rafaad qaar caqligaba inaad sawirato dadka qaarkood aanay u suurtogelayn qaar waxay u baahan yihiin nin dhisan oo isboorti oo dhallinyaro ah qaabka ugu fiican waa qaabka uu sheegay ibnu daqiiq alciid waxa uu yidhi dhagaxa ama shayga lagu istijoonayo ayaa gacanta lagu qabanaya midig shaygii dhaqaaqa laga ilaalinayaa xubintii tarankana bidixda lagu qabanaya bidixdaa shaqaynaysa iyadaa nadiifinaysa oo marmarinaysa oo ku daahirinaysa maxaa laga ilaalinayaa inay midigtu dhaqaaqdo
حلو عرّي ميدكتنا دقاقدو يا هدي ميدكتو دقاقدو طهارتي بودا شقدي اللي ديدنا بودا iyadoo waa inay noqotaa haye kaliya xijiya uun ya saasa ugu fiican istijadina waa la hagaajiyay istijmaarkaan idhaahdo nahigina waa laga baxsaday marka qaabkaasa ugu fiican walaa yatanaffasu yaanu ku neefsanin kuma neefsadee fil inaa'i walka hal uga carraya qofku waxa ka soo baxaya carbon dioxide kiisu soo saaraya carbonkaasina waxyaalo badan baa la socda waxa kaloo laga yaabaa inay dadka ka dambeeya ay ka wiswisaan oo biyo laga daba cabi waayo marka sharcigu wuxuu dhigayaa markaad ka bato inaad dhinac uga leexiso deetaan neefsato haddana aad ka bato haddana aad dhinac uga neefsato aadaabta shurbiga ayay ka mid tahay waana aadaabta quruxda diinteenna haddaynu ilaalino aad bay u qurux badnaanaysaa nolosheennu waxa ka baxaya waswaaska iyo dadka shakisanna way yaraanayaan فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ايا راى وحو اركي كلبا اي ياكل عنيا الثرى عيد قين الثرى عيد قلال الماء ويقف عده حيوانك هرادني اما نولا هرادني wax qalalan ma bacuni karo wax qalalan halka ma u dhaaf mayso qoyaan buu ka deeyaa ciidii qoyaneyd ee rayska lahayd ayuu cunaya min al-adashi min tuwamahay waati sababiyada ahayd bisabab al-adash harad awgi fa akhadha ar-rajulu niki wuxuu qaaday khuffahu kabtiisi burka iska dheh idigu burka taqaana khufku waxa weeye waa say burka u sameeysan imka waa la helaa isagoo caaga iyo isagoo saanaba waa ilaa quraanta weeye biyahana wuu ilaalin karaya oo lagu soo qaadaya fajacala wuxuu guda galay yaghrifu lahu inuu u daro bihi bil khufi khufka ugu soo daro hatta arwaahu illa ucukiyay udhargiye fashakara allah ilaahi ba umma hadnaqay lahu isagoo fa adkhalahu al jannah jannada ayuu galiyay xadiiskani waa xadiis siyaabo badan ku soo aroora mar wuxuu ku soo arooraa sida ninkan oo kale ninkani wuxuu ahaa nin haraadan qudhiisu ceelka uu ka cabay markuu ka cabay ayuu arkay xayawaankanoo aad u haraadanoo ciidda carabka marmarinaya markaasuu kabtiisii qaaday qofkiisiioo waa u daray ilaa uu ka dhergay midda kale nin kalaa la sheegay isagu ceelka wuu ku dhaadhacay deetna ceelku waa dheeraa kan maxaa la yidhi yaghrifu uu darayaa kan waxa ka muuqata inuu dhow yahay ceelku uu dhaadhacayo afku ku soo qabtay midna lama odhan kaa kale waa riwaayadda kale bukhaariye ceelkii uu ku degay biyii buu soo buuxiyey afku ku qabtay deetna wuu soo fantay wuu waraabiyey fashakara allaahu lahu faghafara lahu waa u dembi dhaafay riwaayadda saddexaad qof dumara oo dumarka xunxun ee diintoodu liidata ee jirkooda ka ganacsada ayaa naxariisatay xayawaankana u naxariisatay way waraabisay ilaahina waa u mahadnaqay sidaas lagu janneeyay kaafirad ma ahayn laakiin qof muslima oo caasi ahayd wuxuu leeyahay ibnu taymiya dadka noocana qof kasto ay waraabiyaa darajada ma gaadhay waayo xaaladda uu la kulmay ee aygu ku sugnaa iyo xaaladdu qofku ku sugnaa iyo ikhlaaska iyo cid iska dhisayoon jirin ya imka aduu halkan dad ku waraabiso ajir waad heli dembi dhaafna waa lagu dhaafi laakiin darajada heli maysid waayo xaaladaad ku sugnayd guriga laga yaabaa in foostooyin iyo taangi buuxo soma qasabad baa saa iska tiro ceelaad ku dhaadhacday ma jiro cidla ma ahayn xayawaanka laga yaabaad waraabinaysaa udhiisa ayaan xaalad adagba ku jirin kullu haadihi waxa weeye ajir wuu jiraaye لكن درجتي ما قاعديو فشكر الله له الشكر أعلم الناس بالله عدي إلهي وقلت قاني أدومها أيا هذا الكاكو هذلي شكر إلهي اللون سبينيا وشكر إلهي أقارا ومحيا إن إلهي أدونك هو وقادو وناقو سمي أو كقابلي شكر محالي هذا وإن شيء أقاتو كأبل بحسو أبال كي أدعيسو إلهي ما نقيسنا
وإنه كود مدافو وإنه كتشنيو تأويل لماها حديث إسقى اسمعنين إياه وحلقة قاتا حيوان كستون ولا سيدي النبي يقول عليه الصلاة والسلام في كل ذي كبد رطبة صدقة حيوان كستو بيركي سنولي هاي صدقة لقيه ليا ألا لقود وانيا أجرنا لقيه ليا مركاين قال كو شرحضو حيوان كي حقوق دودا ما إلهي بكو شرحي رسولك إلهي بشرحية صلى الله عليه وسلم تاسوحي كينيسا إن لو دير نحو أو وحلو قبطو ولو ددالو فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحري إذا نعس فعل هو فعل ها إذا نعس هدول لودو أحدكم متكين والحال هو يصلي سقط كنية فليرقد هسيحدو حتى يذهب حتى ذني غايدي ولا قد يكره إلى أكتجيو عنه يسقى النوم هرددو تعليلنا ولا قد يكرايو حتى يذهب أي ليذهب يا سيوقتكتو عنه يسقى النوم هرددو فإن أحدكم متكين فهذا النوى وتصريح بالعلة علة الشيقية محل لو يلي هسيحدو وصلاة هاتشوشيو إذا صلى هدوت كدو والحال هو ناعس يسقول ليسن لا يدري مؤغا لعله وحلغيابا يستغفر تمدافر ضلبنا يو فيصب وهبارو نفسه ونفتي سأو هبارو عايها ورنين وهباروي هذا صبغا كوارتي حديثته انت إذا بدن وهباروي سي النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام اللهم أيما أحد سببته أو لعنته فاجعل له شفاعة وكفارة إلهي قف كستون هبارو أما أن لعنده سببته ما حدا ننسى إيه أن هبارو حديث كني وحو أسألوا يهي قف كمسلم كا عبادة لقد دونية وإنت أكرايو نفتين لك كذيدو أولا رفاديو أولا ورك اللوغو يستاقو ما وحين صومرني قفتو مروا حرق حرتي ومركي لو تقبسطا نبقوا أكيد حلوه ما عليكم بما تضيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا نبقوا حين الليهي حدات كنيسو أوضلو لوتو سكتشيف صو صلاة لغا هذا الإمام النووي حوري وصلاة فرلك يتصنها أبا لكن وحكد يدي ابن حجر العسقلاني وحوليه مايا وايو صلاة فرلك حل للوضوء ما وجهك تبع صلاة صبح ولا صوكعي مغربي عشنا دي والله يرقي له شدي عشاء هدي للراتية لغا يابا إنه قفل الوضوء مدي كلا صلاة إنه هرو لو تكدا للربايو إن حل له لقارسيو ما وفعنا قولك ابن حجر باصحو waxay ka waramaysaa sunno oo dhan ma ahe waa salaatul leelka salaatul leel baad tukatay lula kugu soo xaadirtay hasii wadine iska jiifso inna li nafsika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan fa'adi kulli dhi haqqin haqqahu marka jirkii uu ku dalbanaya uu mudaharaad wuxuu leeyahay waa sidee hawadinuuna iseexi iseexi baa lagu leeyahay xaqi jirka ogolow qodobka lagu ku jiraayo diintani way fududahay waana inoo fudaydisay wax la isu rafaadiyo nafta loo kadeeyaa meesha ma yaalaan nafta hadii la daaliyana waa gaadiidkaaga iyo rakubkaaga jannada lagu tagayo neefka haduu meel dhaxa kaaga baqtiyo adiga iyo lugta ayaa isle nafta hadaad cadaabto way nicib cibaadada marka loo yarkaadiyo loo gaalgaalo qodobka xadiisku sheegayna waa cilada ugu weyn ee loo seexanayo waa maxay adoo isla ilaahay bari ayaa laga yaabaa sabarto isla maqanta waxa doonaysaa taa rabbi ighfir li warhamni waxa dhici karta la taghfir li wala tarhamni ilaahu dambigeygana ha dhaafi hana in xariisana tiraado dhici karta culimada qaar waxay qoreen rabbi ighfir li ayay inaad cayn ka dhigto rabbi ighfir li ilaahu iboodo duleeyo boodkaygu jiid ya oo ducadii lagu aqbalaba samada furano xilliga sida lagu booreeyo dhulka lagu jiido si aanay taasi u dhicin way iska seexo intii hadalka tagila oo habar kugu dhicila adiga ka dhaciyo kugu dhacba leeyahay si aanay taasi u dhicin iska jiibso فعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحا laga wariyay أنها عائشة كانت waxay ahayd
تغسل من ميده المنية أي أثر المني راد كمنيدة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مراد النبي أي كجارس أي كميرس ثم تربيتني أراه ونركاي هو منيدة راد كديو فيه مرض قصقا بقعة هل جوبو أو بقعا أما جوبوين وفي رواية أخرى بقعة جوبا ينكو أركاي حديث كان عائشة رضي الله عنها وحي كور رميسا إن النبي أخذ ميسيو مرديسا أي نديفين جرتي وحي كان نديفين إسا أثر المني منيدي كان نديفين إسا منيدو وبيهن ترنكا ابن آدم كابوري باتفاق جماهير أهل العلم وطاهر إن يرون وحبا هينو قلة من العلماء بيدوا والنجس لكن آد بالغو عنانتي صحنا ما إنسان كمكرم كاهي ما كسو شيء كروح نجاسة وحنا قلنا دي فينا سنة ما طاهرين وما هي والنظافة إيوه إن النبي مرديسو بوغا إيه هيران عنيا لنا أي نغطو مرة نظيفة والسلمة أحاديث صار ورتنا فرق بيت المانتا الفرق أحاديث غير روحة المانتا النضح أحاديث غير روحة المانتا سيدا كروكله الغسل صدح ذا حديث هذا كل أنتو همودين أحاديث كهر منسا ما سيدا وما حي وأحاديث وحي كهر منسا مراحل ومراحل منيدو هذي عصبتها هي أو قينتها هي وحكى لما صورت قليه إلا ما يروه أي صورت قليه حالة ويميري شرت عائشة رضي الله عنها مركي ما يروه بقعدها جوبا أو سي سميري قيان كأن ولي قلالين الإسكجت كريه وايو إسكجد منيدا ظاهر كيه هدا ديق نظيفسو أما كادين نظيفسو راد كيري قيان كأ مشكلة ماله وتكنت كنيسة قيان كاسي لا أثر له في النجاسة نجاسة شقكم لها تنمر خراب ظاهر هاي نضح جوا محي مركي نجاسة دي قلشوا عايش واحد جميل تفرقي فرقي جوا محي صول كي كوتش جبينيس مركي تجبيسو وحير بالغين كواركتو مركان أنت بيكون رشيسو أي عدة ساوي سولين شرتي ما أنت أنا ما يروح ما بحناه تجبين يبييرو الغور شيء يعدده سال يقول هذا كفلان هل كان وحلقة قاتا إني ليسك الظاهرية النظافة ده إني في عنتها هاي من يدين يعني نجاسة هاي وحكلوا لك قاتا قفك الضمرة إني نكيد أخذ ميسو ومرض ما يدو أو هجاتيسو إني تهاي من محاسن الأعمال وحسن المعاشرة وعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحلقة قالت وحيتي كانت وحي هاي إحدانا مديو تحيض مدعادة قلت ما ضعو ليجيها شاه ثم تقرض وحي كتش بين جرتي تقرض وحي كحقي جرتي الدم ليجا من ثوبها مرديدة عند طهرها مركي استاهرين يسو فتغسله ويمريسي وتنضح ويرشينيسي على سائره انت صاهر لنا ويرشينيسي ثم تصلي فيه هذا وكنت كنيسي هل كان وحو شيخو قدبي مركو كقدبي منيدي او طاهرة ديجي او نجاسة ولو ديجا لو سكو وافقسن هي جميع العلماء وديجا حيدك iyo نفاسك ديجا عادي خلاف كجيره لكن ديجا la isku waafaqsan yahay waa ka dhalmada iyo ka caadada Aisha waxa leedahay radiyallahu anha midayo way xaydeysay markay xaydana dhiigii maradeeda ku dulduulay ama gaaray taqridu bay sameeysay qardigu waxa weeye waa marka cidida ama farta ama qori lagu fujiyo way wana xaaladda uu qalalan yahay way taqridu waxa kale oo yana soo aroortay taqrusu oo saad ah qarsigu isagu wuxuu gaar u yahay cidida afkeeda waxa noqonaysaa waa fujinay taqrisu waxay fujinaysay الدم من ثوبها مرضي كفتنيسا عند ظهرها مركي فجيسو فتغسله ويمارسا مركي انتي مايدو حيث وينيسا هذا نبي كلا يكون رشينيسا رشداسي ومبالغة في التطهير
ما هنا ظاهرين سيمكا ما يرجع بالظاهرية لكن هو يكسي تيجالي سيو وسواس بالغا عررية وحلا معنى تهاي كأنه كسر مرة كتبية هراءها قفك مركو استيشودو إنه بيير قاضو ومردي سهاسة كوير شيء بيير بدنين هذا دو شيطان كقول هذا وحبا كايمي يربا كاغو بتري بين عليه وبيه هيجي شيء كذا هاي ودين أتلا هذا أي اللي دون يايو وكهرتج حال كهرتجيا شيء كذا الشيطان وسواس كيس أي اللي كهرتجيا ثم تصلي فيه ويكتب كنيسة مرادي دي لقت شفاي هذا أنا لقى ميري هذا لا رشيء وحبق الله تشيل سوق مايو يدوسك قيين أي اللي كتب كنيسة وعن عائشة رضي الله عنها عائشة وحل قوري أن امرأة قبل من الأنصار كمده وقبل لنا أسماء بنت يزيد ابن السكن تصلوا بدنيا علماء قارن واحد وأسماء بنت شكل علماء بدن كودن واحد لي وبس كمدبا مقعون با مرنا نستر الشيء مرنا مقعه وقف دمر كليوي قالت واحد كتل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له كيف سيديبان أغتسل وغميدا من المحيض محيطك عدد السن وغميدا قال وحو النبي يقول الصبنوه صلوات ربي وسلامه عليه خذي قاضو فرصة قبل ير ومرأة ممسكة وعذر له عذر من المسكي ممسكة سين كبرك للشدو إلا فتحيه ممسكة لعذريي فتوضئي اسكو ظاهري ثلاثا صدح تير اسكو ظاهري الوضوء اللغوي هلكن وضوء الشرعي ما الوضوء الشرعي وكاين كنت كان إني ميتشيجا يجعمها هي ماذا حي اللغة اللي ما يدعي كيما هم فتوضئي اسكو نظيف حكى لكم نظيفين يا حبين كي ترنك إن جسده كيمي أيا مرضا يري أدقون كله لكم نظيفين يا وحكلو إمام الخطابي ليه ممسكة النوى لقود ضبدية سوى ضبدي كرتان ممسك تيور معي هاي ممسكة لبامي ما حركيسن يسين كوا حركيسن وشدن سماهين ممسكة مرو وحقبانيسا مرو وحقبانيسا وما هاي ومرو قفك الدمري أي كوتشوتشيني سديكا كانوا لقوا معني ومركا هدي تالقوا معني دوام هاي dhiiggii waa wali socdaa marka waxay isu bedelaysaa qofka dumari inta xaydka ay ku jirto sidee dhiigga isaga ilaalinaysaa weey reenigu wuxuu leeyahay maro ka joojisa oo jirkii iyo maryaha inay gaadho ka wasakhaysa isticmaal maantana gaala waxay noo soo sameeyeen aalado la iibsado oo dumarku isticmaalayaan oo aan waxba dareemeyn meeshay doonto iska soconayso ay habi ku tahay inaan dhibaato soo gaaraynin jirkeeda iyo maradeeda magaalay hadinay sameeyaan sida inaga hadinay sameeyno ya kaada dhiigay iska shalaqsanay damba kama lahe ummadii ilaahay dahaarad iyo wanaaga faray ibdaac ma laha wax abuur hal abuur ma leh shayna inoo soo sameynay ka war marka hadii saa la yiraahdo waa xaala inta dhiigu socdo way fatawaddi laakiin tawraa fiican xadiiskana waxa ku jira taqdiim iyo taakhiir تقديم يا تأخير سوق جرا مركو هره نظيف ويه مرة عادي استعماله قبل نظيفي مركب نظيفي صو مرة ده يرى عذر كلي أرتي إياه أيه لجو سولينيا أرتي لجو سولينيا مركو أرتي لجو سوليو أيه دبتنا قف كده مرها استيشدي يويسدي يمرق بمكان سرعين سا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا نبغى وقت شلي قبل قديم بها هذا ديرن يا رسول الله كيف أتوضأ بها وتري سنة دي فيها سبحان الله يتوضأ بها سنة دي في بيوري يا رسول الله كيف أتوضأ سوتها أنت هاي نبي يقول حاجة سوي سجى عايشة واحد يقول سوتشي دي قعنتها قبطه قل كان لك قلي أنا أوشر حي دمر كي النبي يقول شقدي قبين تريني وينواتها طلبة أرديدا دمر كي وحبرتين فقه برتينها وشقوا وينو علماء كفران كران وايو dadku way kala dhiiray ya marka waxa laga yaabaa qaarkood inay afkooda soo mari kari waayaan sidii ku dhacday in sheekha oo dadka uu dadaalay ee ardayda wax fahansiiya ay 10 budhigay
intii biyaha iyo weysada iyo waxa lagu jiray si cajiib u sharxay oo action loo kan laho caynkan maalintii xaydka la gaaray waa dumar ayuu sidaa baabul xaydi kiiba ma marka dadka qaar baa ilnugul marka kaasoo kale maalinta waxay ahayd in laga qaado oo loo dhiibo maxay gabadh faqiihada oo dumarka u sharaxda oo tira saa iyo saa iyo saa iyo saa isugu habeeya oo calaamadaha u sheegta marka waa taa tilmaamaysa in fardu kifaaya tahay alcilmu bibaabi alxaydi uma ina nabiya istaxyaa waa qajilay faacrada biwajhi wejigiisu xaggaa u jeestay aw qaala wuxuu yidhi tawada'ii bihaa isku nadiifi faakhadtuhaa waan qabtay fajadabtuhaa waan soo jiiday faahbartuhaa waxaan u warramay bimaa yuriidu nabiyu sala allahu caleyh wasalam wixii nebigu rabayba waanu sharxay marka caaisha waxay ammaantay dumarka ansaarta raxima allaahu nisaa alansaar laba arrimood bay ku ammaantay qajilaad la'aan oo markay cilmi noqoto iyo diintooda ma qajilaan waayo xaqa lagama qajilo nebigu wuxuu uga qajilayeynaa cid ka furatuu haystay haddaanu haysan cid ka furataa wuu u caddayn laha wuxuu laa saa iyo saa iyo saa yeel marar badanna waa caddeeyey laakiin haddaad helaysa cid kaa furataa waxaad u bashaaqiso oo afka ugu ballaadhisaa meesha ma yaallaan taas waa taa dumarkuna ay arrimaha noocaasa ka qajilaan waa u doqoniimo waa inay ciddii arrinkaa ka fujin kartaba ula tagaan waxaa kale caaisha ku ammaantay dheganugeyl raxima allaahu nisaa alansaar lamaa nasalat aayat lxijaabi talafacna bimuruudihinna dumarka reer ansaareed way dheganugulyihin markii xijaabku soo degay maradii baan tolanayaa iyo dawaarkaa iga haya iyo waxaa may odhanine go'yaashii guriga yaallay ay isku duuduubeen rag iyo dumar waxayiin baa la garan waayey qofka muslimka ah qofka dumar ee muslimaddii waa taa wixii la amro horay ka fulisaaye ma warwareegaan إله وحن ويديسنا علم نافع عمل صالحة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك